Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Tuulo yar oo ku taala koonfurta dalka Turkiga ayaa lagu arkay arrin cajiib ah oo aanan horey loogu arag caalamka. Qoys yar oo ka kooban hooyo iyo aabe da' ah iyo 11 carruur ah oo ay dhaleen ayaa lagu arkay xaalad naadir ku ah bini'aadamka. 5 ka mid ah xubnaha qoyskan ayaanan awoodin in ay lugahooda ku istaagaan. taas beddelkeed waxa ay ku socdaan 4 addimood ayaga oo garguurta sida xayawaanada oo kale. Qoyskan ayaanan awoodin in ay cagahooda ku istaagaan wax ka yar 2 daqiiqadood. Balse mushkiladan ma aysan ka hor istaagin in ay gutaan waajibaadkooda diiniga ah sida salaada, akhrinta Qur'aanka Kariimka, iyo sidoo kale howlahooda shaqo sida beerashada iyo in ay kaalmeeyaan waalidiintooda. Qoyskan ayaa da'dooda lagu qiyaasay 18 jir ilaa iyo 34 jir, waxa ayna la nool yihiin awlaad ay ilmo adeero yihiin oo gaaraya 13 qof. Waxaana loo sababaynayaa xaaladan qalqal ku yimid hidde-sidayaasha DNA-da iyo dib u dhac ku yimid koriinshaha maskaxda, ayaga oonan awoodin in ay dhaqdhaqaaq sameeyaan ilaa in ay adeegsadaan labadooda gacmood iyo labadooda lugood mooyaane sida daanyeerada oo kale. Waxa ayna awoodi karaan in ay lugahooda ku istaagaan ilbiriqsiyo kooban oo kaliya. Qoyskan waxa ay isticmaalaan luqad yar oo kooban oo ay isku fahmaan. Dhaqaatiir iyo saynisyahano badan ayaa waxa ay bilaabeen in ay baaritaan ku sameeyaan qoyskan si ay wax badan uga ogaadaan arrinta ka dambeysa mushkiladan. Dhaqaatiirta qaar waxa ay ku tilmaameen in ay ciladan ay ka timid qalqal ku yimid hidde-sidayaasha DNA-da. Kuwa kale waxa ay ku tilmaameen in ay sabab u tahay isbeddel ku yimid bay'ada ku hareeraysan, halka kuwa kale ay qabaan fikir ah in ay sabab u yihiin waalidiinta dhalay carruurtan oo ay ku sheegeen in aanay ku dadaalin oo ay iska indhatireen habsocodkooda maalmihii ay carruurta ahaayeen oo ay la qabsadeen garguurashada ilaa ay ka weynaadaan. Haddaba soo qor alxamdulillaah haddii uu Eebbe ku dhammaystiray 6daada 6aad. siina sheer garay muuqaalka si ay dad badan ugu cibri qaataan. Mahadsanid.